bannaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo bannaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay bannaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya bannaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay cara xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyena isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka bannaanbaxayay oo ishartaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door ah hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawtaako ee soo hormartay SYL waxayse bannaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad moodo iyaga laftooda inay bannaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii bannaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii calaysnaa ee maanta bannaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulannay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin وهي كسور جدا نبضة وهي كسور جدا ديدنا وحال ديدنا مامون كدبت الغصوة الله عقد الله سيساي صومالي ذا لك لقداي وحوال بقى قرنك إلو قدوم يلا ربو أيان ديدنا ما أقولي حدانا دقوينا صوماليا حدانا عندنا دلك صوماليا حدانا وحاربنا النبض وحالو تقال ما وحينا النبض صوماليا وحالو تقال لبنا قوم نمو وحي صومالي نبض كذا لها يا تاقير سنة أنه ما تاقير سنة دولار هست نفتايدا مالك هيديا كويل ورقورا كنا وعن هدينا ناوح كصوبح بنام بحنا بدأنا كنا وعب هدينا واحد ديار واحد إن صوماليا نبضهش إن تدوينا صوماليا نبضهلو إن عرورتا يهو يوينك وحوال بقومات كاللق لهرو نبض واحد كسور جالس شريف سكين إيا حروف جدا عوضو من الدولين waxaan oo galnay shacabka culmowdiinka odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada qaladayadu annaga iskale waxaan diidanahay maya intii nooga taliyan diidanahay gudoomiyaha majmaca culmowdiinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo ka mid ah dadkii bannaanbaxani ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garuusanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay kambale waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxaa taladanadii la wareegay shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi oo si dulmi ku qaatay iyo wadiyada dirif ajnabigaas national qaatay cadawga Soomaaliyeed awaamid qaatay taasana diidanahay annaga waxaan ka soo horjeednaa mu'aamarada uu samaynayo gudoomiyaha baarlamaanka shaqo kuma leh adduunkana kama dhigta qaanuunkana meel lama dhigna in ra'iisul baarlamaan oo dowlad soo dhiso
banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin dadka aanaysa ayaa maanta ku muujinaya sida weerar soo horjeeda waxa ay ugu yeereen faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka dowlad wanaagga Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si aad u taageersanaa ama muujinaya taageerada u hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abdinuur Muddo telefishinka qaranka Muqdisho banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meel kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay caraq xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo is-hortaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door ah hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada Ceelgaab Sayidka iyo waliba wadada Xawataako ee soo hormarta SYL waxayse banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad mooday iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulannay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin wixii ka soo horjeeda nabadda wixii ka soo horjeedaan diidana waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisaayo Soomaalida la kala gadaayo oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogolin haddaana dadweynaha Soomaaliyeed haddaana ciidamada dalka Soomaaliyeed haddaana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamo wahaynaa nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaynaa gobonnimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhalihayaan taageersanahay annagu ma taageersanin dollar haysta naftayda ee maalkaydiyaa ku weyna goorgooraan ku dhaawacan haddeeraan dhaawac ka soo baxay bannaan bixid nabadeedaan ku dhaawacmay haddeerna waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in carruurta iyo hooyooyinka wax walba gumaadka lagala helo nabadda waxaa ka soo horjeeda Shariif Sakiin iyo xurufyada oo wato mana doonayno gudoomiyaha majmaca culimo diinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo kamid ah dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garuusanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay Kambala waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxaa taladanadii la wareegay oo shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi
banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin dadka caraysan ayaa maanta ku muujinaya sida weli soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka dowlad wanaagga Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si aad u taageersanaa ama muujinaya taageerada u hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abdinuur Muudey telefishinka qaranka Muqdisho banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meel kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxyaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goorsada ay banaanbaxyaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxyaashan oo ay ka muuqatay caraq xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo ishortaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada Ceelgaab Sayidka iyo waliba wadada Xawataako ee soo hormartay SYL waxay banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad mooday iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar kamid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulanay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin wixii ka soo horjeeda nabadda wixii ka soo horjeedaan diidana waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisaayo Soomaalida la kala gadaayo oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogolin haddaana dadweynaha Soomaaliyeed haddaana ciidamada dalka Soomaaliyeed haddaana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamaa wahaynaa nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaa gobonimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhalihayaan taageersanahay annagu ma taageersanin dollar haysto naftayda ee maalkayga ku weyn gooraan ku dhaawacan hadeeraan dhaawac ka soo bax banaan bixin nabadeedaan ku dhaawacbay hadeerna waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in carruurta iyo hooyooyinka wax walba gumaadka lagala helo nabadda waxaa ka soo horjeeda Shariif Sakiin iyo xurufyada oo wato mana doonayno waxaan ogolahay shacabka culimadiinka odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada qaladayadu annaga iskale waxaan diidanahay maya gudoomiyaha majmaca culimadiinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo kamid ahaa dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garuusanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay kambale waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxaa taladanadii la wareegay oo shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi
banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin dadka careysan ayaa maanta ku muujinaya sida weegi soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka dowladda Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si aad u taageersanaa ama muujinaya taageerada u hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عبدالنور مودي تلفزيون قرنك مقدشو banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meel kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay carab xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo ishortaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door ah hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawataako ee soo hormartay SYL waxayse banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad moodo iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulannay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin wixii ka soo horjeeda nabadda wixii ka soo horjeeda diidana waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisaayo Soomaalida la kala gadaayo oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogolin haddaana dadweynaha Soomaaliyeed haddaana ciidamada dalka Soomaaliyeed haddaana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamaynaa nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaynaa gobonnimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhalihayaan taageersanahay annagu ma taageersanin dollar haysta naftayda maalkayga ku weyn gooraan ku dhaawacno hadeeraan dhaawac ka soo bax banaanbixin nabadeedaan ku dhaawacbay hadeerna waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in carruurta iyo hooyooyinka wax walba gumaadka lagala helo nabadda waxaa ka soo horjeeda Shariif Sakiin iyo xurufyada oo wato mana doonayno waxaan ogolahay shacabka culimadiinka odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada qaladayadu annaga iskale waxaan diidanahay maya gudoomiyaha majmaca culimadiinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo kamid ahaa dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garuusanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay Kambala waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxaa taladanadii la wareegay oo shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi
Soomaaliyeed rabitaankiisa iyo taageeradiisa inuu iscasiilo ayaan diidanahay waxaan ka codsanaynaa inuu ka naqdo shacbiga Soomaaliyeed oo shaqan lahayn umadiisa odayaasha dhalinyarada ciidamada qalabka sida haweenka ayaa ku garab taagno deegaankan adiga xukuumadaada anaga beerta u guulayso kanana ba aqbali mayna aqbalin anaka tashanayna shirweyne qabsanayna dalka naga dhisanayna heshiinayna anaka noo haya taasaan adkaynay banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin dadka aanaysan ayaa maanta ku muujinaya sida weli soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka dowlad wanaagga Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si aad u taageersanaa ama muujinaya taageerada u hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عبد النور مودي تلفزيون كقرنك مقدش